furitaanka bilowga hawsha shirkadda caymiska islaamiga ah ee takaaful oo ku beegnayd maanta ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jira wasiiro ganacsato maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha bangiga horumarinta Soomaaliya iyo xubno kale oo taraafikadu ay ka mid tahay iyadoo si rasmi ah shaqada shirkadaasi caymiska islaamiga ay xariga uga jireen xubno uu ka mid yahay wasiirka batroolka iyo macdanta iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda General Ali Xirsi Barre Cali Gaab taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee traafiko ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in muhiimad weyn ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed shirkadan caymiska islaamiga isagoo ku dhiirigeliyay inay door ka qaataan. caymisku waa badbaadada dadka iyo hantida intaba dadkaas gaal shir aaday hadii ay caymisku jiri lahaayeen lacag badan oo si aan munaasib ahayn shakhsi looga qaaday oo baabuurkii inuu xaraasho ay sababtay ay ku saabtayna arintaas caymiska daawo u tahay wax yar oo aadan dareemin hadii aad caymis ku darsato oo aad gar hesho ama adiga khasaaro ku soo gaarto oo xataa aad gar daraato caymisku xun bay qaban lahayn kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Macalin Cabdi Guure ayaa gobol ahaan amaanay doorka shirkadan iyo waxay ku soo kordhin karto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir waa runtii wax naga maqnaay caymis inaan helno Soomaalida iyo hantidooda iyo qof kasta uu u baahan yahay marka waan mahadcelinaa ganacsatadii arintan fikradan keensatay haddana dhaqan gelisay ee furtay u diyaarisay adeegan waxaan rajaynayaa Soomaalida dhammaan inay ka faa'iideysan doonto wasiirka batroolka iyo tamarta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Mukhtaar ayaa dhankiisa dhiirigeliyay dadaalka ganacsatada Soomaaliyeed waxaanu arrin muhiim ah ku tilmaamay hirgelinta shirkadan caymiska islaamiga ah runtii waa u hambalyeynaya takaaful in ay sameeyeen caymis inta waxa dheer in caymiska uu yahay caymis ku salaysan diinta islaamka oo aan ahayn mid ka hor imaanaya marka fiirsan marka adeega loo baahan yahay iyo adeegiyo ku salaysan laftigiisa diinta islaamka waa runtii wax lagu farxo waxayna imaaday xilli munaasab ah oo aad loogu baahnaa marka waxaan leeyahay hambalyo well done sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan ayaa isaguna talaabo wanaagsan ku tilmaamay in Soomaaliya ay hesho shirkad caymis islaami ah isagoo bogaadiyay ganacsatadii doorkaasi qaadatay message waxa uu tahay shacabka Soomaaliyeed in Soomaaliya meeshii ay ka timid inaysan u noqonaynin ay Soomaaliya hore u socoto hadii wax la badbaadinayo marka waa fursad oo hadii dadkii ganacsatada Soomaaliyeed mas'uuliyadda saaran ooga madcelinayna ka dawlad ahaan marka waxay ka mid tahay nooc qaynuunka ka mid ah kala dambeynta in trafficada wax u fududaanayso dadka hantiilayaasha wax u fududaanayso qofkii commercialka ahayna wax uu faa'iideeyaa shaqaale waa laga helayaa meeshii cashuur baa ka soo baxayso intaba waa la faa'iideeyaa cashuur markay soo baxdo qofka muwaadinka Soomaaliyeed dhowr shay buu helayaa caafimaad uu helayaa waxbarasho uu helayaa cadaalad uu helayaa ugu dambeynna wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ah mudane Axmed Cali Kadiye ayaa dhankiisa ku biiriyay muhiimadda shirkadan caymiska islaamiga ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed runtii dhalinyarada furtay mar labaad baan u mahadcelinayaa caymisku wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa dhiirigelinta maalgashiga ay maalgelinayaan shirkadaha dibadda ka yimaada sababtoo shuruudahooda ugu horeeya waxaa ku xiran inuu dalku leeyahay caymis sidoo kale wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa gudaha dalka sida gaadiidka hantida gaarka loo leeyahay gaadiidka badda iyo dhammaan waxyaalihii hoos yimaada marka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadan ganacsiga First Takaaful oo runtii aad isugu hawshay shirkadan caymiska islaamiga ah oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay 20 sano kadib Soomaaliya ayaa waxa ay door ka qaadanaysaa in ganacsatada Soomaaliyeed ay helaan caymis haddii khasaarooyin ay soo wajahaan waase ganacsatadii qayb ka noqota oo shirkada ku biirta waxaanay daboolaysaa baahiyo badan oo ganacsatada Soomaaliyeed ay u qabeen inay helaan caymis islaami ah